السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خيار شرط الكسور وهذا روب ماركان دمايسترن وأن كبران دونه سيدا أتكون قلنا هايد نتوك إنجينير بإذنكي. مركا واحد ربا إنت بدن مركا أونلاين كات والربا قفكوين وحكبرتو أما دوني سيدا أونلاين كوحكبرتي إنت بدن وحا أداد إنا ده الشيء وحبلو إلا رمادا مركا إنت بدن وحا لغايا وإنا داركتid فيديو غارة فيديو لبعض وميل غارة فيديو سبحانه وميل غارة sometimes عشرة اسكو xiran wada inay heshay laakiin mar walba bigger picture-kii ayaa ka dhameystiran marka sidaa daraadeed ayaan runtii waxaan diyaarinay waxa la yiraahdo network ama maaragtay qofku ku baranayo network administrator cilmiga uu ku baranayo oo roadmap dhameystiran oo bootcamp ah marka waxaan rabaa roadmap-kan inaan idila wadaago sidii aad ku noqon lahayd network engineer dhameystiran wadadii aad u raaci lahayd haddii Ilaahay yiraahdo ayaan rabaa in aan marka koobaad aan kula wadaago marka kadibna halka kaagama harayo oo waxaan isku dayi doonaa haddii Ilaahay yiraahdo in aan samayno master class dhameystiran macnaheedu class dhameystiran oo qofku uu nidaamkan aan sheegnay oo si dhameystiran cilmiga network-ga uu ugu baranayo oo aan ahayn oo kaliya roadmap kaliya aan ku ekaan marka waxa ujeedka ugu weyn waxa weeye in arrintaas aynu helno bootcamp dhameystiran marka qofku muddo kooban uu doonayo in maaragtay ama muddo kooban uu qofku uu cilmiga network ku noqon karo oo network engineer uu ku noqon karo ama xirfadaas uu ku shaqaysan karo iibinayay marka waxaan rabaa marka koobaad inta aanan roadmap ku galin in aan isweydiino waa maxay network engineer marka network engineer inta badan marka laga hadlayo maxaa lagu qeexaa ama muxuu yahay network engineer inta badan network engineer marka laga hadlayo waxa lagu qeexaa inuu yahay technology professional macna qof dhanka teknolojiyada ku professional who is highly skilled in maintaining the connectivity of networks in terms of data, voice, calls, videos and wireless network services marka si fudud haddaynu ku qeexno network engineer waxa lagu qeexaa qof professional ama khabiir yaqaana ama aqoon u leh maxaa la yiraahdaa si gaar ugu tababaran inuu samayn karo connectivity isku xiro khadka shirkadda ama network shirkadda ama kombiyuutarada ha noqdo ama qalabka ha noqdo connectivity isku xiri kara oo shirkaddu si app u noqoto oo mar walba ay u shaqeyso hagaag marka sidaas oo kale waxyaabaha qofka macnaheedu uu isku xiri karo wax noqon kartaa data in xogta shirkadda uu maaragtay qayb ka noqdo ama waxyaabaha xogta shirkadda la xiriirta voice oo ah wax la xiriira hadalka ama taleefanada oo la socota voice of AP iyo wixii lamid ah ayaa la isticmaalaya iyo calls iyo macnaheedu wicitaankii wixii la xiriira video iyo wireless network-gan aan ahayn aan u diyaarsanayn maaragtay bila fiilada marka network-ka la socota wax weeye waa nooc la yiraahdo wired iyo wireless ayuu inta badan u kala qaybsamaa marka si guud looga hadlayo marka wired wax laga wadaa mid fiilo la macaamila wirelessna waa bila fiilo ayaa laga wadaa marka labada hadaba markan aynu u wareegno dhanka shaashada marka su'aasha ugu horeyso oo isweydiinayso waxa weeye maxaad ugu baahan tahay tababarkan ama maaragtay barnaamijkan dhameystiran oo network administrator-ka aad ku baranaysid ama cilmiga networking-ka aad ku baranaysid ama xirfadaas gaarka aad ku baranaysid oo aad doonaysid inaad network engineer ku noqotid mustaqbalka maxaa kugu kalifaya maxaad se ugu baahan tahay inaad noqotid marka arrinta ugu horeysa waxa weeye marka koobaad network administrator-ku ama network administrator inaad noqotid ama technician ama engineer ba noqo waxaan waa wax la noqdo maaragtay waxa weeye waa career marka wax weeye qofku wax uu noqdo sida dhakhtar oo kale inuu noqdo oo maaragtay uu dhakhaatiirnimada iyo waxa uu barto oo medicine iyo waxa uu barto sidaas oo kale inuu qofku accountant noqdo sidaas oo kale ayay waxaan u tahay muhiimad u tahay oo qofku uu baran karo oo maaragtay wax jira ah oo loo baahan yahay marka tusaale fudud haddaan ku siiyo cilmiga inta badan networking-ka waxa u baahan any company macnaheedu dalabka sida loogu baahan yahay inaan kuu sheego dhowr arrimood ayuu faa'iido u leeyahay kow waxaana waa skill aad baratay oo dee taas waa isla fahnay inaad wuxuun cilmi aad korarsatay uu yahay labo any company ayaa u baahan qof networking ku shaqeeya ama network yaqaano tusaale ahaan company walba oo le wuxuun dhowr kombiyuutarna allaha ka dhigo wax sheer garaysanaya
kaa laga bilaabo ayaa network u baahan sidaasoo kale kambaniyada waaweyn oo dhowrka boqol oo maaragtay end user oo kala duwan isticmaalayo kumanaan kun oo boqolaal server haysta shirkadaha kumanaanka kun ee ka shaqeysa iyo shirkadda 10 kun oo qof ka shaqeyso iyo shirkadda 5 qof ka shaqeyso iyo shirkadda 2 qof ka shaqeyso oo muxun computer ah ku shaqeysta waa ay u baahan yihiin qof network administrator oo shirkadooda ka shaqeeya sidaa daraadeed marka wax weeye waa shaqo aad u baahsan oo runtii aan ka duwan xoogaa sida xirfadaha kale ee la baranayo oo kuma xirna qola gaar ah u shaqeysid iyo group gaar ah u shaqeysid kuma xirnee group walba ama maaragtay shirkad walba oo qalab muxun u yaalo oo maaragtay u baahan in la wax la isugu xiro ama wax maaragtay ay share gareeyaan ama wax la xiriiraan ayaa runtii u baahan qof network administrator ayaa u baahnaan kara oo runtii sidaas u ballaaran yahay marka laga tago shirkadaha waaweyn oo runtii aad kaba u qaata marka laga tago marka taa waa dalab ayaa jira oo waxani waa wax weyn oo marka aad baratid aadan meel cilaa kusoo dhacin qodobka labaad waxa weeye waxani waa career la barto qofku wuxuu ka bilaabaa caadiyan inuu noqdo network technician okay oo meesha laga bilaabo oo entry level ah kadibna qofku wuxuu noqdaa network administrator markaana qofku wuxuu noqdaa wax la yiraahdo network engineer oo levelka ugu dambeeya marka waa mihnadtaas oo kale qofku u baranayo oo ku takhasusayo oo una raacaysa cilmigii guud oo qofkani uu yaqaan hagaag marka waxaan rabaa inaan wax yar oo kale aynu ka taabano waa maxay mushaarka uu ku shaqeeyo ilaan waxaan wali isa garanaynaa dad waaweyn baynu nahay marka wixii qofku u baranayay qofkii waxaani mushaar ma leeyahay waxaani maxaa lagu shaqeeyaa weeye marka runtiina waxaan kaloo rabaa inaan kugu sheego hay'adaha kale qofku markuu shaqeynayo shaqada inta badan IT-ga qofku markuu ka shaqeynayo oo maaragtay network administrator ama IT technician uu ka shaqeynayo inta badan ama IT aan iraahdo maaragtay qof IT officer uu yahay inta badan IT officer u yaqaanaan waana isla meesha IT officer-ka lagu sheegay wax weyn ma aha waa qof network yaqaana iyo xoogaa yar oo maaragtay computer-ka maaragtay software-hada ku shubi karo wax ka bedeli karo oo Windows-kii waxaan xoogaa ka yaqaan ama maaragtay qof noocaas weey inta badan marka shaqooyinka inta badan hay'adaha inta badan ma aha qofkan si ku meel gaar looma qaato inta badan waxaad la socotaa hay'adaha kale markay dadka shaqaaleysiinayaan in qofka ku meel gaar ahaan loo qaato hadhowna qofka project-iga uu ka dhamaado laakiin maaragtay sanad kadib ama 2 sano kadib uu ka dhamaado laakiin runtii sidaa ma aha qofka IT-ga inta badan loo qaadanayo waa wax weeye waa lifetime weeye qofka macnaha wax oo contract oo dhamaanaya ma jiraan sababta ah shaqadaadu contract ma ahan shaqadaadu waa service-ka had boqoladii joogta ba service u qabataa ilaa hay'adda shaqadii ay joojiso ama marka isxirta meehe si kale macnihi shaqadaas uga matay ama adigu nacdid ama si kale isugu dhacdaan meehe kama maartay boss ma ahan boss isbedbedela ma aha marka sidaa darteedna halka waa faa'iido dheeri ah oo aad haysatid alright marka waxaan doonaynaa maadaama ardada barnaamijkan dhiganaysa arda maaragtay Europe wax ka dhiganaysa wadamada Europe America ay jiri karaan ama qaaradda America iyo maaragtay Australia ay jiri karaan waxaan rabnaa iyo arda wadankii joogta oo Soomaaliya wax ka baranaysa markaana intaba isla fiirino waxaan rabnaa inaanu ka bilowno marka waxaan ka hadlay waa average salary alright marka mushaarka lagu shaqeeyaa rabaa inaan kala hadlo average العلس أهان أنت لو شقيه أنت أقول حاجة أيام دونينا إنه استعرقنا هدي له جرا alright مركا لقاها الله يو وطن UK okay waddanka UK marka laga hadlayo average ka qofka network administrator ka wuxuu shaqeeyaa lacag ku dhow $70,000 ayuu ku shaqeeyaa way marka waxaan ka hadlayo ogow waa inaad fahantid waa entry level waa shirkad aad ku soo biirtay oo maaragtay shaqadii aad marka ka bilowday marka £47,000 lacag gaaraysa markii la fasira oo maaragtay dollar loo sarifana noqonaysa almost lacag $70,000 ku dhow ayuu qofku sanadkii ku shaqeeyaa right marka waddanka Mareykanka asagana waa $60,000 entry level-ka shaqooyinka maaragtay qofku ku bilaabo sidaas oo kale waddanka Canada waa lacag $59,000 oo Canadian dollar ah oo dhiganta way adoo iska $60,000 oo Canadian dollar right marka lacagaha way isu dhow yihiin marka basic waxa weeye muhiimadu qofku markuu wadamada galbeedka joogo waxa weeye normally waxaad filaysaa lacag u dhaxaysa $50,000
ilaa iyo $100,000 lacag u dhaxaysa inaad ku shaqaysid qof ayaad rajaynaysaa. laakiin qofku markuu entry level dhaafo oo de shirkadda ileen igu soo bood ma aha, waxay u baahan tahay dadaal iyo dulqaad bay u baahan tahay. markaad muddo ka yar shaqaysid shirkadda waxay u badan tahay inaad dalaci kartid senior level markaad gaartid ilaa $100,000 iyo ka badanba inaad heli kartid ayay u badan tahay sanadkii. Right? marka la joogo Soomaaliya, maadaama dad badan xaggan Soomaaliya ay nagala socdaan, waxa weeye waa qofku wuxuu ku shaqeeyaa $300 ilaa $2,500. marka waxaan Soomaaliya soo qaadanay halka ka bilaabato iyo halkay ku dhamaan karta ayaan soo qaadanay. runtii waana dareemaysaan oo de waxa keenaya wadamada kala duwan. marka inta badan Soomaaliya waxa de shaqada inta qofkii maamulaha sidaba ugu waxaan waxay ku xiran tahay mushaarkaada, wuxuu ku xiran yahay company-gaada waxa uu bixiyo. haddii qofka maamulaha oo dhanba uu qaato maaragtay maamulahada meesha hadduu qaato $300 uu maamulihii dhamaayo shirkadda qaato, dee aduu marka u badan tahay waxaa ku shaqaynaysaa $200 soo maaha. laakiin dee maamulihii markuu qaato 30,000 oo ama $3,000, marka adigana waxay u badan tahay inaad markaa 2,000 aad ku shaqayso. marka weligaa waa inaad fahantid network-gu wax cirka kasoo dhacay maaha, wuxuu ku xiran yahay company-ga u shaqaynaysay waxa looga shaqeeyo ama wuxuu yahay. marka shirkadahan Maraykan ku yaala ama Ingiriis ku yaala ama Kanada ku yaala, maamulkoodu waxa ay qaataan lacag aad u badan oo $200,000. marka sometimes millions lacag ku dhow bay qaataan sanadkii. marka therefore ayay tani marka u tahay mushaarkii. marka ogowna maamulku ama de boss maamula ma aha boss ciyaar lagu helayo, oo waa wax macnihii ka yara duwan farsamadiisa, sidan wax cilmi lagu helo ma ahan runtii oo keliya, laakiin wax maaragtay over time qofku inuu maaragtay CEO meel ka noqdo waa wax macnaha inta badan waqti badan qaadata. marka qofku de CEO uu noqon karaa meesha roob ha ka yimaado, laakiin taa waa sheeko kale. laakiin muhiimaddu waxa weeye as a technician de qof shaqaysanayo farsamo yaqaana dhulka dhici maysid, qof shaqaysan karaya ayaa tahay. marka taasna maskaxdaad ku haynaysaa mar walba mushaarkaa qaadanaysid wuxuu relative u yahay waddankaad joogtid iyo shirkadda aad ka shaqaynaysid. haddaad Soomaaliya joogto shirkadde maamulaheedu lacag yar ku shaqeeya iyadoo dhan wax yar soo saarta, dee adna wax yar unbaa qaadan kartaa. hadday shirkaddu shirkad weyn tahay oo shirkad laartid telecom operator weyn tahay ama maaragtay shirkad weyn oo ISP-ga waxa ka shaqaysa ay tahay ama network ka shaqaysa ay tahay, dee wax fiican ayaa ku xisaabtamaysaa. marka waxaan rajaynayaa inaynu isla fahanay average salary-ga aad ku shaqayn karaysid hagaag. marka waxaan rabaa marka mar labaad inaan marka kugu soo dhaweeyo horta laba qaybood aan u kala qaybinaynaa barnaamijka. kow waxaanu arki doonaa roadmap network administrator inaad noqotid maxaa lagaa doonayaa oo ma aragtay lagaa doonayaa ay tahay inaad fahantid bigger picture ayaynu markooda fahmi doonaa. kadibna waxaan u imaan doonaa bootcamp keenan dhamayska tiran oo aan cilmiga network ku baran doono, sida u qaabaysan yahay iyo sida u dhigan doono iyo sida ugu soo biiri doontid intaba waanu wax ka taaban doonaa haddii ilaahay yiraahdo. Alright, marka aynu u gudubna marka network administrator roadmap. marka waa maxay roadmapkii ama wadadii? marka inta badan dee qofka network markuu soo biiraya waa sii dareemaysaan cilmiga networking qofku waxaa muhiima inuu xun IT yaqaano. haddaad maaragtay meel kale ka timaaday tusaale ahaan qofka hadduu horta uu yahay aalad computer science dhameeyey ama IT dhameeyey ama dhigta haddaad tahay ama ka shaqeeya IT wax la xiriira ka shaqeeya, dee adi already basicii waaba taqaanaa, marka adiga waa kaa dhantay. laakiin haddaad tahay arday doonaya inuu maaragtay mihnad cusub ama career cusub bilaaba, waxaa muhiima inaad basic IT-ga taqaanid oo computerka iyo windowska iyo officeka iyo waxyaabahaas oo dhan dee inaad taqaanid ayaa wanaagsan. dee ilaa haddii kale maxaad shirkad problemyadeeda xalisaa ileen adiga u baahan inaad kuwaada soo xalisid marka koowaad soo ma. marka taasna marka waa taa. marka intaas ka gudubno haddii ilaah yiraahdo, maadaama waxa u taabanayna waxa weeye barnaamijkan waa barnaamij dhammaystiran ama roadmapkan ama waxaan ku baranayna cilmiga networkingka waa barnaamij dhammaystiran oo waxaan ugu talagalnay qofku inuu bilaabi karo meel ugu dambayso advanced ana uu gaari karo, meel uu kasii socon karana hadhow aan sii siino haddii ilaah yiraahdo. Right, marka networka marka aad rabtid inaad administrator noqotid waxaa lagaa doonayaa inaad essentialka networka si fiican u taqaanid. networkuna sideedaba dadka inta badan si khaldan u fahmaan networkingka ama network engineer markaa noqonayso. network engineeringku ma ahan wax oo maaragtay ama administrator noqonayso ma aha wax oo aad markaba code iska qoraysid ama code aad iskala soo boodaysid ama CMD ama command line aad furanaysid ama qalab aad iska rakibaysid iyo fiilooyin iska saas ma aha. networka waxa weeye shirkadda waxaa laga yaabaaba in sanadkii mar ama laba jeer networkeeda redesign lagu sameeyo, hal mar la dejiyo la farsameeyo. inta kale networku wuxuu ku xalismaa caqli iyo xaggan sii aadaya iyo logic wax la yiraahdo ayuu ku xalismayaa. wax yar baa laga yaabaa inaad commandiga ku tuurtid iyo wax lamid ah, laakiin shaqada inteeda badan 90% fahan ayay ku dhamaanaysaa ama 80% baan idhaahdo waa fahan iyo waxaan problemkan meesha u socdo
inaad fahanto waa sida engineer guri dhisaya engineer guri markuu dhisayo 90% waa fahan asaga intay kaga dhamaanayso 10% oversight iyo inuu fiirfiirsho oo maalin walba ag tago oo wixii asoo guriga ma dhisaya xabad isma saarayo asoo guriga waxa weeye farsamadii buu leeyahay marka network engineer marka noqonaysid dabaq dhan baa lagu dhiibayaa networkii gobol dhan wadan dhan baa lagu dhiibayaa networkii waxaas hal mar diyaarinaysaa waa fariisinaysaa bil baa laga yaabaa inaadan nasar laakiin marka aad fariisisid systemkii uu stable noqdo wixii ka dambeeya waa support iyo cila saarid iyo troubleshooting iyo wax soo baxa inta badan networkaada markaad stable ka dhigtay shirkadda u shaqaynaysid waxay u badan tahay inaysan cilada badan aysan ku qabsan right marka taa marka waxa weeye waa essentialkii inaad fahansan tahay right marka waxaan loo yaqaano CCT ayaad muhiima inaad marka hore baratid kadibna CCNA aad baratid right marka oo Cisco Network Associate laga soo gaabshay Cisco Certified Network Associate taa kadibna CCNB oo levelka labaad marka CCNA-dan waxay u dhigantaa degree level ay u dhigantaa ama associate level waxaa marka hore loo soo saaray qof ku shaqeeya IT-ga laakiin waxaan sameynaynaa waxa weeye halkan kuguma daynayay tanna waanu dhiganaynaa marka waxaba waanu isku dhiganaynaa CCNB na waxa weeye master degree bay u dhigantaa kadibna CCIE waxay u dhigantaa PhD level inaad network ka qaadatay network wuxuu leeyahay leveliskan oo sidaas loo bartaa inta badan marka aad network baranaysid waxaan aan hadda akhrinayana waa shahaadooyin caalami oo international sida Englishku u leeyahay shahaado loo qaato salaahana English oo kale waxa aragtaa in TOEFL ka la qaato iyo IELTS-ka in la qaato ayaad arki kartaa marka kuwan marka hadda salaahan jaamacad aad dibadda u socotid ama aad wadan tagtid ama meel kale u socotid waxa lagu leeyahay IELTS ma qaadatay oo macnaheedu shahaado international ma ka haysataa English marka IELTS-kan waxaan wax la isla raacsan yahay caalamka oo dhan qofka hadduu ku baasay waxa weeye English waa yaqaanaa weeye sidaas oo kale waxaan wax la isla yaqaano oo siskadan iyo waxaan aynu ka hadlayno waa shahaadooyin caalami oo international marka muhiim ma aha macalinka inkastoo ay shahaado qaadan doonto tababarkan marka dhamaysatid haddana muhiim ma aha inaad ka walwashid hadhow shahaado caalami ay ku helaan shahaadada caalamiga qaab loo galay leedahay imtixaan bay leedahay system bay leedahay waxaana waad baranaysaa waanu ku baraynaa sidaad u dhigan lahayd wixii oo dhan waad baranaysaa adoo marka wax fahansan oo cilmi ahaan u yaqaan skill ahaan u dhisan meesha wuxuu doonan lahayd garanaya ya shahaadii imtixaanka internationalka mustaqbalka aad geli doontaa right marka taasna marka waa sidaas marka waxaad u baahan tahay sidoo kale specialization inaad hadhow aad qofku wuxuu ku takhasusi karaa security-ga ammaanka wuxuu ku takhasusi karaa voice oo codkii waxaa la xiriira ama voice over IP oo inta badan dee teleefanadii wax loo bedelay network iyagoo dhex maraya service provider-ka qolada internetkii waxaa ka shaqeysa data center waa shirkadahan cloud-ka xogta kaydiya oo caalamka la socota wax walba hadda hadiskayaashii waaweynaaye waa laga tegay laakiin wixii shirkada ayaa wixii kaydiya oo servers isku xirxiran oo intaasoo gobol oo kala duwan yaal ayaa jira marka meelahana waa takhasuska aad u baahnaan doontid iyo enterprise aan iraahdo data center iyo enterprise koma ku jirta iyo enterprise alright marka enterprise-kuna inta badan waa network dhismihiisii dhamaystirnaa routing and switching oo kale ayay u dhigantaa network sida loo dhiso marka waxaa ku dhex jirta marka meeshan design ayaa ku dhex jira oo meel inoo raacsanayn design ayaa inoo saaran meeshan designna waxa loogu talagalay in haddii ilaahay ku roon yahay qofku uu ku dejiyo network intaada network dhisin ama dabaq dhan baa lagu dhibay networkisi samee ama maaragtay maxaa yidhahdaa waxa lagu dhibay wadan dhan oo lagu yidhi networkisa design gare sidee xagee ka bilaabaysaa seesa u raacaysa sidoo kale waxaan insha allahu aanu samayn doonaa qaybta ugu dambaysa ee barnaamijkeena ama koorsada markaanu gabagabaynayno bootcampka qaybtiisa ugu dambaysa waxaanu insha allahu ku arki doonaa inaanu idinso road map dhamaystiran sida loo design gareeyo real problem markii dhib maaragtay shaqo caadi oo taagan lagu dhaho shaqada aqoon network si u design gareyn lahayd ayaan insha Allah hadii ilaahay rasul arki doonaa right marka additionally waxaad u baahan tahay sidoo kale inaad server managementiga wax ka taqaanid oo Windows serverka iyo Linuxka aad iyadana taqaanid ayaad u baahan tahay marka qaybtan waa wax un kamid ah roadmapkii waxyaabo qaybtood waa ka tagi karaa laakiin basically waxyaabahan ayaa base u ah waxyaabaha laga duulayo right marka waxaan rajaynayaa inaanu midaas aan si wanaagsan isula fahanno هيك مركا أينو مركا نسول دوانا مركا قيبتان أو network bootcamp network كاينا مركا برنامج كان bootcamp كان نمايسترن محاد كبران دون تاوي سواشو مركا وما حي واحد كبران دون برنامج كان وحنا قلت لك الله مركا كوبات سجاشن معلومات أما 90 days سبتان وقيبني سبح بلود أم كلا قيبني مركا بالوالبا وحنا جانا قيب بالوالبا قيب مركا لبذا بلود وجوه رئيسة وحنا قلت لك الله إن أنا كودي جانو CCT iyo CCNA inaan ku dhigano ayaan ugu talagalnay marka inta dhamayno bisha ugu dambaysa waxaan wax ka baran doonaa serverska ayaan wax ka baran doonaa hadii la yiraahdo right marka
ujeedada ugu weyn ee barnaamijkan ama bootcampkan waxa weeye internetka aniga inta badan wax badan waa ka baarbaaray adigana wax laga yaabaa internet wax ka badan internetka marka wax ka baaraysid waxaa inta badan dib ah oo aad dib u ah in ardaygu uu helo wixii isku toosan wixii uu rabay xirfadii uu rabay ama mihnadii uu rabay ardaygaas inuu ku takhasuso ama career wixii line ah inta badan inay heshto oo isku toosan waa adag tahay marka anaa ujeedka ugu weyn oo barnaamijkan aan u diyaarinay waa inaanu helno line dhammaystiran oo isku toosan oo ardaygu from A to Z meeluu ka bilaabay meeluu ku dhammeeyo leh iyo meeluu waxa ka dhiman u raadsan karo asagoo garanaya uusan ardayga macnaha meel cilaa uusan ku dhicin marka the whole point of this bootcamp waxa weeye is to give you enough knowledge to get you into job aqoon kugu filan inaanu ku siina haddii eeba yidhaahdo oo ardaygu ama inuu helo aqoon ku filan oo u shaqa runtii ku bilaabi karayo right marka self riskana wax baynu ka baran doonaa haddii la yidhaahdo arrinta kaloo cajiibka waxa weeye waxa mar walba casharka la marayo PDF-kiisii waa lagula soo sheer garaynaya haddii ilaah yidhaahdo arrintaa waxaa ku raacsan in laabkii lagula sheer garayn doono laabkii macallinku uu sameeyey sometimes waxa laga yaabaa laabka adiga inaad khaladid oo laab khaldan aad samaysay marka kaadii xataa haddii aad khaladid oo sixi weydid kii macallinka ayaa lagula sheer garaynaya kadibna waxaad samayn doontaa waa isla fiirin doontaa labada laab markaana waxaa kuu fudan doonta inaad saxdid haddii la yidhahdo sidaasoo kale waxyaabo kale oo resources ah oo ardayga anfici karana waa la wadaagi doonaa eeba idankii arrinta kale cajiibka waxa weeye in marka barnaamijka aad dhamaysid aad heli doontid shahaado oo ay bixin doonto insha allahu jaamacadda ay bixin doonto haddii ilaah yidhahdo right marka waxaan rajaynayaa inaan arrintaa aynu iyadana aanu isla fahamnay now su-aasha waxa weeye aynu wada sugayno waa maxay maxaan sameeyaa halkee ka bilaabaa hawsha marka waa fududahay hawshu aad ay u fududahay number 1 waxaad u baahan tahay in aad go'aansatid hawshan oo u diyaar garowdid runtiina waa barnaamij dhammaystiran ujeedada ugu weyn waxa weeye barnaamijkan haddaa beginner tahay haddaa dhexdhexaad tahay haddaa shirkad hore uga shaqayn jirtay iyo haddii aad maaragtay qof waxaan ku cusub tahay labadaba inaad ka faa'iidaysan kartid qofkii shirkad ka shaqayn jiray aqoontiisa uu shaabgaraynaya wax dheeri ama baranaya wax buu ku kabaya qofkii ay ku cusub tahay miinad cusub u bilaabaya qofkii ICT-ga hore u dhiganayay waxa weeye waaba uu ku qasbaya inuu dhigto mar walba maaragtay waxaad maaragtay u baahan tahay weeye kii hore u dhameeyo barnaamijkan asoo dhammaystiran helin waxa weeye mar labaad uu helaya mar labaad uu ka faa'iidaysanaya ugu dambeynna shahaadadani waa helaysa sidoo kale waxaan kuu diyaarinaynaa inaad imtixaanka internationalka ah aad geli kartid haddii ilaahay yidhaahdo anoo kaa caawin doona waxyaabihii kaa caawin lahaa inaad imtixaanka internationalka ah aad geshid ee baydinka right marka waxaad u baahan tahay oo keliya in waxaanu samaynay telegram group number 1 marka telegramkan groupkan inaad isaga soo biirtid taa waa arrin wanaagsan iyada number 1 xagga hoosena la soco xagga hoose ayaan waxaan ku reebi doonaa informationkan oo dhan xagga hoose ayaanu dhigi doonaa alright marka informationkan dhan wuxuu ku yaalaa halka hoose commentiga ka eg waxa weeye markaasi si fudud aad ugu soo dhufatid ama xogtan si fudud aad u koobiyeysated alright marka waxaan rajaynayaa in aanu intaa isla fahnay alright marka sidoo kale facebookayga gaarka ah waa kan as engineer abyad ahaan arrinta labaad waxa weeye emailkana waa kan alright marka emailkana waa kan info@abyadic.com arrinta kale waxa weeye xaggan waxa ku yaala whatsapp numberkii marka waxaad samayn doontaa si fudud ayaad fariin qoraala ama cod ayaad fadlan kusoo reebi doontaa haddii waayo koolka waxaa laga yaabaa inaan isku jadwal ahayn oo ay adkaato in markaba lagu soo jawaabo laakiin isku day inaad cod ama qoraal soo dhigtid isla markaba lagu soo jawaabayaa haddii ilaah yiraahdo si degdega haddii ilaah yiraahdo alright marka waxaan rajaynayaa marka waxa weeye wax kale uma baahnid intaa baad u baahan tahay inaad la soo xiriirtid group ku soo biirtid whatsappkana la soo xiriirtid fariin noo soo reebtid inaad barnaamijkan danaynayso weliba aad fadlan aad soo raaciso dhahdid barnaamijka noocaas yaan doonayaa inaan ku biiro oo 90 day bootcamp ayaan doonayaa inaan ku biiro oo aan noqdo haddii ilaah yiraahdo inaan network administrator buuxa aan noqdo marka ujeedada ugu weyn ee barnaamijkan waxa weeye in aqoontaada waxa weeye qofka ardayga loo dhammaystiro systemkii uu ku noqon lahaa network engineer buuxa oo xirfad cusub iyo career cusub iyo mihnad cusub oo maaragtay halkaa noloshiisa qayb weyn ka noqoto oo isbeddel ka samaysa barnaamijka umaana samayn si maaragtay iska fudud umaana samayn waxaan samaynay barnaamijkan si dhammaystiran dadka serious ay ka tahay ayaan ugu talagalnay arrintan ay dhab ka tahay inay doonayaan cilmigan inay bartaan ayaan barnaamijkan ugu talagalnay marka sidoo kale fadlan waxaan kaa codsanayaa haddii aad online-ka ama YouTube-ka aad ka daawanaysid barnaamijkan in aad
videoga aad like garaysid si ay maaragtay dad badan ay u gaarto fursadan oo ay uga faa'iideysan kara barnaamijkan sidoo kale haddaad channelka ka daawanaysid inaad channelka subscribe aad ku dhufatid batoonkana aad like garaysid videogan si arrintan ay u caawiso oo shaqadan wanaagsan ay u gaarto ummad kale oo Soomaaliyeed ay uga faa'iideysato aad ayaan ku salaamayaa khayr fara badan ma ku rajaynayaa waxaan rajaynayaa inaynu isku arki doono qaybaha kala duwan ee koorsada aynu isku arki doonno haddii Ilaahay yiraahdo